dunidan aan ku noolnahay muddooyinkii u dambeeyay waxaa ka dhacay layaabyo iyo mucjisooyin kuwaas oo lagu soo bandhigayay goobaha lagu soo bandhigo layaabka dunida. haddaba maxaad ka taqaanaa 10 qof ee ugu layaabka badan dunidan? waxaan halkan idinkugu soo bandhigi doonaa 10 qof oo ay macquul tahay inaadan horay u maqal, haddii aad maqashayna ay tahay inaad maqashay qaarkood. Channel Xogaha Media waa channel u taagan taariikhda iyo inuu kaaga sheegayo wax walba oo maskaxda kugu dhisi karo. barashada taariikhda waa nolol dhammaystiran. fadlan subscribe saar oo ku taxnow channelka Xogaha Media una sii share garee asxaabtaada. Amo Haji waa 80 jir u dhashay dalka Iran. waa ninka ugu wasakhda badan caalamka. waxaa la sheegaa inuusan qabaysan ama jirkiisa uu biyo ku taaban muddo 60 sano ku siman. Zalata waa gabar u dhalatay dalka Ruushia. waa gabar jirkeeda ka dhigi karta sida ay doonto iyadoo isku laalaabayso sida qaabka maska oo kale. si kastaba magaceeda rasmiga gabadhan Ruushiyaanka ah waa Julia Gantel. qof jecel ma jiro inuu jirkiisa dulduleeliyo ama uu nabarro u yeelo, laakiin waa ay ka dhacday caalamkan aan ku noolnahay. la yaab aysan kugu noqonin haddii aad aragto dad wejigooda iyo jirkooda u bedelayo si ay qurux uga raadiyaan. Rolf Bachelos waa 53 jir u dhashay dalka Germany. waa ninka ugu duleelka badan caalamka. waxa uu jirkiisa duleeliyay in ka badan 453 jeer. sidoo kale waxa la yaab kale ayaa ah inuu wejiga hore ku leeyahay 2 geesood oo aad moodo kuwii xoolaha oo kale. Saadu Amar Bahati waa nin gacantiisa ama dhudhunkiisaas gacantiisa caadiga ka dhigay sida aad sawirkaba uga jeedaan mid taagan oo aan hoos u soo laaban karin. waxa uu gacantiisa sidan u hayay laga soo bilaabo 1973 ilaa haatan. Allah subxaanahu wa ta'ala abuurkiisa la yaab ma lahan. waana midka awooda inuu wax kasta abuuro. sida caadiga ah dadka ku nool dunidan ee aan wada naqaano waa dad leh 10 farood oo ay ku leeyihiin gacmaha iyo 10 farood oo ay ku leeyihiin lugaha. laakiin Akshat Saxena waa uu ka duwan yahay sidaas. waxa uu 7 farood ku leeyahay gacmaha, gacantiiba waxa uu ku leeyahay 7 farood. sidoo kale waxa uu 10 farood ku leeyahay hadda waa 10 farood lugaha. la yaab male arrinta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala, asaga ayaa sidaas u abuuray. alxamdulillah. Tao Bojon waa 96 jir. waxaa la aaminsan yahay inay tahay macallimada ugu weyn ee barta dadka yoogada. yoogadu waa ciyaar dhaqameed ay leeyihiin dadka Hindida ah, aadna ay u xiiseeyaan inay ciyaaraan. waxaa la sheegaa inay macallimad ahayd traininkan ay bixinaysay ama tababarka ay bixinaysay muddo ku siman 70 sano. Theo Ningon waa Vietnamese ama u dhashay waddanka Vietnam. waa nin aanan seexanin laga soo bilaabo 1973 kadib markii ay ku dhacday qandhadaas oo u diiday inuu seexdo. Francisco Dome Jogiam waa ninka ugu afka weyn caalamka. waxaa la sheegaa balac afkiisa inuu leeyahay 6.69 inch. waxa u fudud ninkan inuu afkiisa geliyaa soodho isagoo aanan ka mutaysanaynin wax dhiba. adiga afkaaga maxaad gelin kartaa ood is leedahay xabadu kuna ma qaada afkaaga inaad hal mar geliso? Ram Singh waa Indian u dhashay waddanka India. waa ninka haysta rikoorka ninka ugu shaarbaha weyn caalamka. shaarbihiisa waxaa la sheegaa inay gaaraan 4.29 mitir. waxaa la sheegaa dhaqmada jirkiisa inay ku qaadato ama shaarbihiisaas nadiifintooda iyo hagaajintooda inay ku qaadato ilaa iyo 1 saac. Macho Lateto waa nin cuno biraha. waxa u fudud inuu si fudud u cuno biraha isagoo aan wax dhiba kala kulmaynin biraha cunistooda. waxaa la yiri inuu cunay ama la sheego la xaqiijiyay inuu cunay 9 tan oo biro ah. si kastaba ha ahaatee macquul ma tahay qof bini'aadan inuu cuno biro. 10kaas qof ee aan kor ku soo xusnay kee kugu yaabka badnaa adiga? keeds hore u maqal halkan hoose ee commentiga noogu reeb. wixii tale iyo tusaale sidoo kale noogu reeb halkan hoose.